ciidamadan maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cadda international ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa tababar loogu qaaday wadanka Djibouti. tababarkani ayaa waxaa dhaqaalihiisa bixinaysay dawladda Talyaaniga iyadoona ay fulineysay dawladda Djibouti. waxaa garoonka diyaaradaha ku sagoontiyay wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha Mahdi Maxamuud Cali, taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Shariif Sheekhouna Maye, taliyaha akadeemiyada ee General Kahiye Ahmed Dayib Ahmed oo dhamaanba talasiin iyo waliba dardaaran u soo jeediyay ciidamada tababarkani loo qaaday ayadoona ciidamadani tiradooda ay gaaraysay 204 oo 16 kamid ah ay ahaayeen haween. waxaana ugu horeyntii goobtaasi ka hadlay tababarkana furay taliyaha akadeemiyada ee General Kahiye Ahmed Dayib Ahmed. halkan waxaa diyaar ku ah 200 oo arday oo 16 ay gabdho yihiin iyo 4 macallin oo mid kamida 4 kamida ay gabar tahay. ciidankaasi runtii waa ciidankii booliiska Soomaaliyeed sida hortiina ka muuqata, waana niman dhalinyaro ah. ragana aad u jeedid waxay u socdaan Djibouti. halkaas waxay ku qaadan doonaa tababar ah oo isku jiro ka hortagidda argagixisada, tababar oo VIP ah, tababar dambi baariyaal ah, miina baarista ah, miina baarista ah. intaas koorso ayaa isku jira. wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha Mahdi Maxamuud Cali oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tababarka ay ka faa'iideysanayaan ciidamada Soomaaliya oo laga soo kala xulay qaybaha ay ka kooban yihiin ciidamada Soomaaliya. waxaa la idinka filayaa inaad aad iyo aad uga faa'iideysataan tababarka kan oo aad soo laabataan idinkoo xambaarsan aqoon aad iyo aad u fara badan, waayo aragnimo aad zaa'id u ah, kabacdina aad ka hawlgashaan goobihii laydinku talagalay inaad ka hawlgashaan idinkoo khibrad iyo aqoon zaa'ida oo tii hore maalinta halka baxdeen ka weyn isticmaalaya. tiradan ciidamada ayaa tiradii ugu badneed ee ay dawladda Soomaaliya ay tababar ugu dirdho dawladda Djibouti, iyadoona ciidamadani ay wax badan ka bedeli doonaan sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliiska ammaanka wadanka Soomaaliya ayna wadankooda wax u baran doonaan. Kawsar Cabdinuur Aadan, Hoon Cable TV, magaalada Muqdisho.